أنا كأجد جوابها أنت وجودن بيسوى الدون إيا آخر عفي إجمتهين إذن ما عفيناي أنت أصلا إذن لا هاي وتوشين هو سايدين فروايدين داوانا ياهي أوكي أنا كأجد جوابها يا مرك أنجا وحكينا إن النكاح هذا اللي وحوي أديك كيناي هذا طبعا هذا الكوه هذلي شلي ترى أديك مركو بنت الله ونحرستي وتشبان كوجنا قاني وحنا كوجنا قاني جبر أسطران جبر وناكسن جبر هذا اللي وناكسن كو هذا الشا جبر إسكاكايا نعد إسا جبر إسكاكايا قد أيان كوجنا قاني الله ونحرستي مالين تمرحون كبنتين وحال الصوب بحذي وجه كله waxaan ku qof xabsi ku jiray oo kala noqotay hatta waxaad nagu waanin jirtay inaan la isqaawinin ha aniga wajigayga intaas bas ilaahay ii baneeyay labada cukur maalintii dambe waxaan ku aragnaa adoo maryaha dhigtay adoo aasaydi markaad saa isaga dhigtay aadidir dhaba adoo waxaan ku aragnay maryo khafiif xidho isruuxaya dhahaya adoo waxaan ku aragnay adoo dhahaya rag ayaan la salaamin adoo ragga hab siinayaan ku aragnay adoo waxaan ku aragnay dhahaya nin ma guursanayo xaajigayga Allah u naxariisto markaan xasuusto adoo dhahaya ku aragnay oo dhahaya ma guursanayo haddana waxaan ku aragnay adoo nin wata oo nin maartay uu kugu dhagayo waliba reerkiisa ka burburiyay marka adigaanu intaas oo dhan ka hela amana cafi amahna cafinin anaga shaqo noo taala ma jirto waligaana aan cafinin haday ku taalo anaga shaqadeeda maaha because ada media iskeenay anagu marka waxaan u fasilanay inaad waxoogaa maskaxiyan inaad fayoobeen sababtoo tahay shalay waxaad nagu leedahay xaajigayga baa dhintay ma guursanayo nin ma laga yaabo inaan guursado adaa dhahay inta lagu wareystay waxaan ku aasaydi dhexdeedina nin baad ku shukaansatay ilaahay baan kugu dhaariyay marka walaali macaani siiniya saad waa la kala saaraa adiga marka hal talayar baan ku siinayaa maadaama ta walaal macaan aniga gabadh walaashay ah Soomaaliyeed oo anigoo kala maadaama ta qof media ku jiro maadaama ta qof YouTube leeyahay waxaa la rabaa hadalladaadu inay miisaanaadaan because in 10 eray lagu barto waa ceeb in hadalladaadu istuqeeyaan waa ceeb markaad adiga muraayada soo hor istaagto waa inaad dhada oo aniga maanta hodan baan maxaan ka hadlaa waa inaad horta dib isugu noqotaa waa inayna noqon erayo istuqeynaya waa inaad saadu asturnaataa laakiin walaal macaan qof xabsi laga soo daayay baad u egtay marxuumkii markuu dhintay walaal dabeecad kale aan kugu aragnay oodan lahayn midda kale walaal macaaneen marba reer hadumin walaal qaali Allah u naxariista marxuumkii baad naag ka kor qaaday oo gabadha adoo u shaqaynaya guursatay masar buu reerkiisa geeyay gurigiisa ka shaqaynaysa markaas Allah u naxariista xaajigii gabadha ka kor qaaday wiilkan hadda aad wadato ciwaankiisa haddaadan guursan maxaa ciwaankiisa ku soo xambaariyay ciwaankiisa baad wadataa midda kale adigu walaal macaan su'aashan ku weydiinaya waxay tahay ragga kaligooda kama heshid miya ma guryaha dadka dumisaa waa noo fikir waa noo reesooto waxa weeye reality-ga iyo kalarkeeda caadigu waa noocaas ama gabadh yar ciiso ah ku noqoto ama islaam up to you ودأبي ميتك ciise waxay ku guursadaan naagaha waa waxay u guursadaan ayagoo waaweyn ay guursadaan sida dadkan koonfur iyo Itoobiya isku ma guursano sheegin ciisaha hadda dhaway diintu gaadhay bariga carwakaas been hal ay soo dhaw barigii hore ninka ciisaha iyo gabadha ciisu ayagoo ismeersan isku jireen waa wax runta la ogyahay ayagoo ismeersanin maadaama Faransiis waddankooda joogo dhaqanka Faransiiska ugu qaataan cadaanka wiilka ciise iyo gabadha ciise ayagoo ismeersanin bay markii hore isku jireen هذا وحي هذا بريهم ضمبي دون كان هذا ضمبي أيه وحبا دين في سوق هذا أروح كتبان الله يسوق المها وقوها بيعيسوه وجوه عن فوق بسم الله إلى ما يقصر هنا أنا كلمت بينك الشيء دين في جاد أولا من يسكن شري كنا حتى عيسى هرالا أنا كأجد جوابها أنت وجودن بيسوى الدون إيا آخر عفي إجمتهين إذن ما أفناي أنت أصلا إذن لا هاي وتوشين هو سايدين فروايدين داوانا ياهي أوكي أنا وكاجد جوابي يا مرك
annaga waxa keenay inaanu kaa hadallo waxa weeye adigaa keenay adaa 10 hadal ku hadlay shalay toole odaygaagu markuu dhintay allah u naxariistay waji baanu kugu naqaanay waxaanu kugu naqaanay gabar asturan gabar wanaagsan gabar hadallo wanaagsan ku hadasha gabar iska kaaya dhaadhicisa gabar iska kaaya gada ayaanu kugu naqaanay allah u naxariistay maalintu marxuumku dhintay waxaad la soo baxday waji kale waxaan ku qof xabsi ku jiray oo kala ad noqotay xataa waxaad nagu waanin jirtay inaan la isqaawinin ha aniga wajigayga intaas bas ilaahay ii baneeyay labada cukur maalintii dambe waxaanu ka aragnaa adoo maryaha dhigtay adoo aasaydi markaad saa isaga dhigtay aadidir dhaba adoo waxaanu ka aragnay maryo khafiif xidho isruuxaya dhahaya adoo waxaanu ku aragnay adoo dhahaya ragga yaan la salaamin adoo ragga hab siinayaanu ku aragnay adoo waxaanu ku aragnay dhahaya nin ma guursanayo xaajigayga allah u naxariisto markaan xasuusto adoo dhahayaanu ku aragnay oo dhahaya ma guursanayo haddana waxaanu ku aragnay adoo nin wata oo nin maartay uu kugu dhagayo waliba reerkiisa ka burburiyay marka adigaanu intaasoo dhan kaa hela ama nacafi ama ha nacafinin annaga shaqo noo taala ma jirto weligaana ha nacafinin hadday kuu taalo annaga shaqadayda maaha because adaa miidiyaha iskeenay annagu marka waxaanu u fasilanay inaad waxoogaa maskaxiyan inaad fayoobeen sababtoy tahay dee shalay waxaad nagu leed xaajigaygii baa dhinto ma guursanayo nin ma laga yaaba inaan guursado adaa dhahay inta lagu waraystay waxaan ku iri aasaydii dhexdeediina nin baad ku shukaansatay ilaahay baan kugu dhaariyey marka walaali macaani siin iyo saad waa la kala saaraa adiga marka hal tala yar baan ku siinayaa maadaama ta walaal macaan aniga gabadh walaashay ah Soomaaliyeed oo anigoo kala maadaama ta qof miidiyaha ku jiro maadaama ta qof YouTube leeyahay tahay waxaa la rabaa hadalladaadu inay miisaanaadaan because in 10 eray lagu barto waa ceeb in hadalladaadu istuqeeyaan waa ceeb markaad adiga muraayada soo hor istaagto waa inaad dhada oo aniga maanta hodan baan maxaan ka hadlaa waa inaad horta dib isugu noqotaa waa inayna noqon erayadooda erayo istuqeynaya waa inaad saadu asturnaataa laakiin walaal macaan qof xabsi laga soo daayay baad u egtay marxuumkii markuu dhintay walaal dabeecad kale aan kugu kale walaal macaan waxa weeye